asxaabta ku xiran shan meediya ku soo dhawaada sheekadii cusbad libin jecel qaybteedii 15aad sidii ayaa ay teelka ku damisay markiina waxa u soo gashay Yasmiin oo ku tiri aaba ayaa ku wacayo Falis cabsi xoogan ayaa gashay waxa loo sheegay in odayga uu qolkiisa ku jira markiibana waa ay u gashay aabe warsamo oo taagan ayaa ku yiri aabe warsamo soo gal ee fadhiiso Falis amarkii ayaa ay qaadatay oo inta ay hore u soo gashay ayay kursi u dhawaa ku fadhiisatay aabe warsame jinniyada ku hayay markaa dageen Falis aabe aniga jinniyo ima hayaan ee qadar ayaa aniga xumaanta ila daba socda aabe warsame maya aabe qadar waa uu saxar yahay ileen adiga ayaa la dhashay oo ragga darbiyada la taagan kaalimiyaadan xishooneenin ma ogtahay in sharafka hablaha ay ku jirto gurigooda oo dariiqyada ay ceeb tahay Falis wax ay sheegtay ayay la adahay madaxa in ay ruuxdo oo kaliya ayaa ay warka ku soo koobtay aabe warsame oo hadalka sii wata ayaa ku yiri aabe warsame imaqal Falis annaga adiga ayaan wanaag kula rabnaa sharafka sidiisaba lacag xataa laguma keeno ee qofka isaga ayaa laga rabaa in wixii karaamo xumo u horseedaya inuu ka waantoobo ninkaas Yaasiin la yiraahdo magaciisa xataa ma maqli karo mana la kulmi karti sidoo kale gurigan deerka uu ku leeyahay banaankana ma dhaafi kartid ma maqashay Falis haya aabe warsamo hadii ay dhacdo in aniga wax karaamo tiraya aad fashana ama aad nacaskaas wadada ka raacdo ogow in aan kala dhimanayno gurigan iyo familkan iska ilow maalinta sharaf ayaan kula rabaa ee adiga caga dhigo Falis aabe warsame waad bixi kartaa hooyadana ii wac Falis oo neef weyn ka soo baxday ayaa soo baxday oo hooyadeed u yeertay markii ay u soo gashay Yasmiin oo wali halkii fadhisa ayay in cabaar ah aamustay oo markii muddo juq laga waayay ayay u sheegtay in loo soo digay oo kaliya waxayna Yasmiin kula talisay walaasheed in ay gebi ahaan jacaylka Yaasiin iska ilowda balse looma jawaabin oo wal waa laga sii jeestay hooyo Maryam markii ay xaajiga u tagtay ayuu u sheegay in hadal ay meel dhigteen isaga iyo ayna adeerka guriga iska fadhiisan karto walow aan xaajiyada arinkan ku farxin hadana xaajo warsame ayaa ka dhaadhiciyay in gabadha aan cadaadiska laga badin isaga ayaa ku yiri aniga ayaa qadar la hadlayo Falis xorriyadii yaareed ee la siiyay ayay iskaga naanoonaysay mana aysan haysan fursad ay qadar kula kulanta hadana xilli kasta telefoonka ayaa ay iska maqli jireen mursal lug xayrka lagu sameeyay Falis ayaa fursad u ahayd oo uu habeen kasta ku arki jiray oo deerka gurigooda ku wada sheekaysan jireen walow Yasmiin ay la joogto aadanna mararka qaar u iman jiray Falis madnaadashadii qadar ayay ku jirtay saaxiibkeed muddo 2 habeen ayay si sir ku kulmeen hadana cid ogaatay ma jirin xataa Yasmiin uma sheegin ilan Yaasiin ayaa sidaa ka codsaday fursadii ugu weyneed maanta ayay u soo baxday markii xilli galab ah hooyo Maryam loo soo sheegay in walaalkeed geesay oo degada xamaali ka ahaa geeri lama filaan ah ku timid kadib markii uu salaadii casr oo soo tukaday uu masaajidka irdiisa uu ku dhacay nafta ku deysay mar kaliya ayaa reerka oo dhan wada carareen oo xaafadii reer geesay oo kaawo goday ku taalay la wada aaday waxaana la isku raacay in meedka lagu aaso tuuladii uu ku dhashay oo ay hooyadiis ku nooleed waxaana la isku raacay in bari salaada subax meedka la qaado qadar aabihiis iyo hooyadiis waa iswada raaceen waana ay hubtay in aan laga soo hoyan karin waxayna tani fursad siisay in caawa kulan cabsi aan ku jirin in ay la kulanto saaxiibka sidii ayay isku ballansadeen Falis habeenkii markii uu gobolka dumay ayay isdiyaarin gashay Yasmiin waa ogeed in ay Yaasiin la ballansan tahay oo isla habeenkii ayaa lagu wargeliyay dhinaca kalena Yasmiin habeenkaas waxa ay ka mid ahayd habeenada ay banaanka u soo fadhiisato mursal oo ay kulmayaan iyaga oo deerka guriga wada fadhiya ayaa ay soo baxday Falis waxaana salaam laanteeda ka yaabay mursal oo ku yiri mursal haye Falis salaamo jirto Falis caawa oo kala ha iqaban balse anoo imaan habixin mursal haye waan ku arkaa dabeesha ayaa ku sidata caawa Yasmiin kii Yaasiin ahaa ayaa
ay la kulmaysaa waxa uu ku noqday mawjad sidata ilaahay ha xafido wallaahi waan u baqaa mursal iyada waa qalbi nadiif insha allah midkii xumeeya ilaahay kama yeelo yasmiin aamiin 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 asxaabtayda Shaam Media jimcada dambe hadduu eebba idma la socdaa qaybta xigta